ma ogtahay ma maqashay diinta islaamka inay mamnuucday mudaaharaad dibadbax isu soo bax in laga qayb qaato inay mamnuuc tahay ma maqashay ma ogtahay horta aniga maantaan maqlay waa isdiyaarinaynaa mudaaharaadkii dibadbaxa berri salaadii jimcaha iyo masaajidka naloo dhex raaciyey oo culimmadu waxa ay leeyihiin qaarkood mudaaharaadku waa dembi dibadbaxa ciddii soo abaabusho qayb qaadata dembi waa diinta islaamka ma ogola nacalad iyo waxaana la ogeyn baa kugu dhacay ka baaqsada inaa haweenka iyo carruurta iyo dhalinyarada soo abaabushaan oo dhahdan dhul baa nagala dhacay gabar baa laiiga dilay oday baa laiiga garaacay wiil baa laiiga toogtay waxaas inaa ka sheekaysaan oo aad dowladdii dhibaatada ay samaysa aad dadka u sheegtaan arrin fiican maahan dhibaatay keenaysaa marka diinta islaamka ma ogola markaan diinta aan isku dhex maruuhayaa fiiriga waxaa marka soo dhammaaday 36 saacadood ka hor bootada beenta iyo awood sheegashada ee dowladda Soomaaliya kadib markii ay mucaaradka iyo dadka shacabka ay madliyeen in la qaban doono mudaaharaad maalinta Sabtida dowladdii waa hooyoweyse waa harsaweyse wax waa cunugeyse saasi TV isugu badbedelayaan kan TV-gan oo tagaa kan TV-gan kii booliska gudaha booliskii wadanka arrimaha gudaha kii amniga ra'iisul wasaarihii kaashaandhigii kulligood waxay taagan yihiin warbaahinta waxay leeyihiin mudaaharaad lama qaban karo oo gudoomiyihii gobolka iyo rag kale waxa ay sheegeen mudaaharaad aan dowladda ogoleyn soo qaban qaabinin ama iyada aan loogu naageynaynin ciddii qabataa waa soo xiranaa talaabo sharciga waafaqsanaan ka qaadanaydeen yacni qof iyada la aragti iyo qofkay doonto bes baa mudaaharaad qabsan kara qof kale hadduu qabsado ama iyada ka taabanaya ama ka aragti duwan xeerka iyo sharciga tallaabo waafaqsanaan ka qaadanaydeen walow xeerka iyo sharciga uu dhigayo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed xaq iyo xuquuq inuu leeyahay qodobka 20aad inuu cabiro aragtidiisa iyo dareenkiisa oo mudaaharaad uu halka fadhiisto wuxuu doono sheego wuxuu doono diido wuxuu doonana doono yiri goodin iyo hanjabaad bay dowladdu 36 saacadood warbaahinta la taagtay cid dhigtaa u dhigtay male waa harso weyse waa jiifan weyse culimadii u wareegtay culimadu waxay leedahay waa dembi waa xaraan qolyaha ku hadla marka fiiriso afka dowladda dhagaha dowladda wax ku maqla indheeda wax ku arka ama aqligeeda leh ee tubada meelaha yaryarka loo suray ama mid hadda kor qaanda wax loogu daro leeyin allah amniga maadaama muqdisho la burburin rabaa dad cadow ku ah baa mudaaharaadkan soo qaban qaabiyey waa inaan diidnaa in magaalada amnigeeda la burburiyaa waa inaan ka hortagnaa ciddii khalalaasa wada ma rabna mudaaharaad iyo dibadbax iyo toona haddaba dowladdu waxay mar u goodinaysaa mar culimmadu u adeegsanaysaa mar islaame iyo haween iyo caruur iyo dadba aragtay nacamleeyaal ama afhayeenna aan dhahno ama guulwadayaal u adeegsanaysaa maxay tahay dowladdu waxa ay ka gubanayso oo ay diidan tahay maxay u diidaysaa in la mudaaharaad ilaa mudaaharaadka hadda kahor madaxweyne xasan baa mudaaharaaday shariif baa mudaaharaaday farmaajo lagu mudaaharaaday 10 jeer baa lagu mudaaharaaday mudaharaadku inuu silmi uu sheegay madaxweyne xasan wax fiican yahay xuquuqda muwaadiniinta lagu cabirayo madaala mudaharaadi jiray dowladdaaba xalay mudaharaadiisii darteed 10 dhishiike iyo 10 dumara isku keentay xayaat mool horteeda ku niikinayeen maxay tahay amni darrada ay keenaysay in dadka kale adiga aragti duwan markay mudaaharaadaan laakiin adiga markaa niikinayso aynan iimaanaynin magaaladan amnigeeda isbedela maxay tahay amnigan ma qof buu ku dhex jiraa mise amnigu magaaladu yaala oo waa xaalad iyo marxalad dadka dhan wada dareemi kara adigu ku dhex jiraa kaligaa baa dareemay I don't know waxaa fahmi karna ma isku soo wado marka horta dadkan hadlaya ee culimada leh siyaasiyiinta leh ee diinta adeegsanaya ee dastuurka adeegsanaya horta ogow diinta iyo dastuurka kama soo helayaan xuquuq siinaysa muwaadinka la dilay maxaa loo dilay biilkii maalin hore lagu dilay muqdisho ama kontomeeyada lagu dilay dhulkii la boobay kontomeeyada lagu qiyaasaa lagu dilay wadaadada kama soo helayaan qodob xuquuqdooda muwaadiniintaas la dilay hooyooyin jiifo gurigooda saa loo barakiciyey kitaabka qur-aanka wadaadada hadda hadlay kama soo helayaan oo xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniintaas muslimiintaas kitaabka kama soo helayaan ama xeerka dowliga kama soo helayaan gabadhii Soomaaliyeed ee haweenka ahayd ee cunuggeeda gurigeeda dhiga jibin ayadoo dhahaysa cagaaf inta la geliyay sida inta loo qabtay la qaawiyay madax dhulka loogu dhuftay gabadha Soomaaliyeed xuquuq ugama soo helayaan beedkaas uma fiirinayaan beedka odaga iyo dulmiga iyo qolada dhiigga cabaysa dadka dilaysa beedka iyaga ay u arkaan inay xal u tahay kitaabka ka soo dhex saarayaan ama dastuurka laakiin muwaadiniintan la dilay odaga 9 jirka ee 11 nin dishay
kitaabka kama soo fiirinayo ku jirtaa kitaabkeena qur-aanka iyo diinteena islaamka xuquuqaysiisa dadka muwaadiniinta xor ay ka dhigtay ma fahmaysa haddana ugama soo helayaan dadkan culimmada sheeganaya waayeelka iyo odaga iyo carruurta la dilay wiilkii la toogtay iyo dad in la barakiciyo ummad soomaaliyeed in la qaado oo jidka la seexiyo iskoolaadkoodii dugsiyada kitaabka kama soo helayaan laakiin kitaabka waa ku jirta oo kitaabku wuxuu hadda loogu shaqaynayaa dad alla dartiis loogu shaqaymaya dhihi karnaa hadda kuwa dastuurka ama xeerka isticmaalayaan dee 7 bilooda u harsan dastuurkii xeerka waxay ka arkaan dulmiga iyo dhiigga waxay la daran yihiin dadka wax dhacaya ay wax dilayaan haddaba dadkan noocaas ah marka waa Soomaali waxay diidan yihiin dad Soomaaliyeed oo muwaadiniin oo muslimiin dhibaatada ku dhacday inay jidka inta fadhiistaan oo xuquuqdooda sheegtaan oo diintan u dhigaysa dastuurkan u dhigay bay diidan yihiin shakhsi ay fiirinayaan ama mishaar ay fiirinayaan laakiin dawladdu maxay fiirinaysaa dawladdu waxay fiirinaysaa hal arrin oo cad waxay diidan tahay in dadku jidka inta soo fadhiistaan caalamka la hadlaan Soomaalida la hadlaan iyaga ku dhooda Ilaahay inay soo xasuusiyaan oo dadka muwaadiniinta ah jidka fadhiisanaya guryaha laga burburiyay ka hadlayaan carruurta laga dilay ka hadlayaan iskoolaadkii laga burburiyay ka hadlayaan ganacsiga shaqo abuurka laga burburiyay ka hadlayaan masaajidadii ka hadlayaan cidda la siiyay ka hadlayaan in la dhacay sheegayaan dhimasho iyo jirdil iyo tacaddi inay jiri sheegayaan dadkaas taas marka caalamkana waa arkaa dad badan oo shacab Soomaaliyeed waa arkaa qulubtooda naxariis baa ku soo laabanaysa iyo khushuuc maadaama dad iyagoo kaleeta ay jidka ay jiifaan oo dawladda saa u dulmiyay iyaguna inay yihiin kuwa beri lagu soo socdo bay shacabka dareemi doonaan waxba dhaamin kuwa la dulmiyay sidoo kale kuwa cagafta wata kuwa soo amray iyo kuwa lacagta kala qaadanaya iyo kuwa amarka sare soo bixiyaba waxaa laga yaabaa meesha mudaaharaadka markii la fadhiisto wixii ka soo baxay inay dhageystaan Ilaahay inay soo xasuustaan oo idhaan animaasaa yeelay ma amarkayga dadka loo barakiyay ma qofkaas saadhi loo dhibaateeyay amarkaygu ahaa Ilaahu cafi waa joojiha intaana ku sima xataa waxay u tahay naseexa iyo waana iyo wacdi u tahay kuwa kuraas ugu sareeya fadhiyay dhiigga dartood loo daadiyay dadka dadkooda loo barakiyay waxay u tahay wacdi iyo waano so inay diidaan ma qaba marka iyo waxay u arkaan ceeb adduunyo laakiin uwada faa'iiday idin tahay oo mar faa'iiday idin tahay waxay keeni doontaa dembigan aad sii joogteynaysaan oo aakhirna la weydiin doonto inay idinka kala yarayso haddaa hadda dembisaan marka oo dadkaas sii cabursaan oo isku day xuquuqdooda u diidaan waa ka awood badnaan kartaan oo guryaha ku xareyn kartaan laakiin mar kale wax kale isku dayayaan oo ah haddana waa nala caburiye inay ka doodaan hadda waxay ka doodayaan waa in la burburiye dhibaatadana sheeganayna haddaa caburiso dood kale waxay bilaabi doonaan in dibadbax kale caburin dibadbaxa hoosh waa sii weynaani haddaa caburiso xataa hadda hooshan waa kugu sii weyn haddaa daysane dee adduunkii iyo dadkii la hadlaan adiga meel kuu fiyo male marka 7 bilooda ugu harsan ceeb 2 maalin 2 af maroojis waaye maxay dhahaan Soomaalida 2 maalin iyo 1 af maroojisniya dee waayo wax idinkama dhibayso waa u bareerteen dee ama sii wada ama caburiya ama iska daaya ha mudaaharaadaane ogaada tan adduunya aakhir waa la iskala xisaabtamaa jid dariiq masaajid mawla iyo goob caafimaad ama diyaarad dusheed ama wado meeshii la isaga hor yimaadane waa la isku weydiinaa magaciina dabcan tuug uu noqonaa maabatiin madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu yidhi tuug waa tuug magac kale ma leh waa in loogu yeeraa dadka waxaan ku shaqada oo dhan waxaan leenahay marka waa tuuganimaana loogu yeeraa wax kale ugu yeeri karna malaana hooyo jiifto ninkii barakiciyey dhulkeedii qaatay iibsaday lacag u badashay jeeb ka gashtay waa tuug madaxweynaha jamhuuriyadda marka na faray inaan ugu yeero qof walba magacuu leeyahay dadkaa marka noocaas iyo ficiladaas sameeyey magacaas aan ugu ceynaa insha Allah masaajidda ku jirna hataa qaabkaas u salaamayna kama joogin doono beriyo sabtiyaan noo baranne asalaamu calaykum waraxmatullahi